السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aan isla akhrino technical articalka calaaqada leh cash flow statement chapterka 16. طبعا technical articalkan waxaa qoray qof ka mid ah kuwa qaybta ACC ee imtixaanka qaado. muuqaalkani ama articalkani waa muraajaco. waxaa muhiim ah marka hore chapterka in aad soo daawato, kadib ayaan kugula talinayaa inaad articalkani aad daawato ama aad akhriso, lianno muraajaco weeye, cashirkii oo dhan ma aha, qaybo ka mid ah ayaa xoogga la saarayaa. Okay, aan isla bilowna marka. waxa uu ku bilaabayaa qoraaga in uu dhaho cash flowga marka laga hadlayo. cash flow haddaad aragto waxaa laga wadaa lacagta ay shirkadda qabanayso ama lacagta ay shirkadda bixinayso. idan cash flow markaan dhahno lacagta waxaa soo hoosgalayo in aan ka wadno lacagta ay shirkadda qabanayso ama lacagta ay shirkadda bixinayso. oo haddii aan rabno inaan lacagta shirkadda qabanayso aan si specifically u sheegno, maxaan leenahay cash inflows, halka qaybta lacagta shirkadda ka bixiso cash outflows. Okay, qaab noocee ayaan kusoo bandhigaynaa? waxaan kusoo bandhigaynaa positive ahaan warbixinta statement of cash flowga. marka lacagta shirkadda haddii ay qabato positive ahaan plus ahaan, halka lacagta outflowska ee shirkadda ka baxdo aan kusoo bandhigayno negative ahaan aan kusoo bandhigayno. warbixintan statement of cash flowga nambarada ka soo muuqanayo waxa uu articalka qoraaga uu ku tilmaamayaa inay yihiin missing figures, inay yihiin nambarada maqan. haddii aad ila xasuusato, dabcan waxa aan soo diyaarinaysaa warbixintan ka hor. dabcan shirkadda waxaa la rabaa inay diyaariso financial position iyo waxaa la rabaa in la diyaariyo profit and loss. idan akoonno ayaa ka soo muuqdo qaybtani financial positionka, halka akoonno kalena ay ka soo muuqdaan qaybta profit or losska. nambarada maqan waxaa lagu soo bandhigayaa statement of cash flowga ayaa lagu soo bandhigayaa. tusaalena sii macalin. Okay, haddii aan su'aal ku weydiiyo, chapterka haddaad ila soo qaadatay waad ila fahmi doontaa. haddii aan su'aal ku weydiiyo, mithaal ahaan ayaan soo qaadanaynaaye, lacagta aan shirkadda ay qabatay cash received, lacagta aan ka qabanay dadka customerka, ma awoodaa in aad ka soo saarta labadan warbixin? bimacnaa lacagta aan qabanay miyay ka soo muuqanaysaa? dabcan warbixinta profit or losska waxay ku baysgaraysan tahay accrual basis, oo kuma baysgaraynayna revenuegeena markaan diiwaan gelinayno lacagaha aan qabanay, ee waxaan diiwaan gelinaynaa marka revenuega ay shirkadda xaq u yeelato oo laga helo shuruudii, oo qofkii customerka ahaa alaabta aan gacanta ka gelinno. haddaba lacagta aan qabanay kama soo muuqanayso profit or loss, financial positionna kama soo muuqanayso. xaggee bay ka soo muuqanaysaa? statement of cash flow ayay ka soo muuqanaysaa. waa haddii aan ku diyaarinayno qaybta directiga. gadaal baan uga imaanaynaa qaybtaasi, lianno statement of cash flowga laba qaab ayaa loo diyaariyaa. idan marka uu ku leeyahay cash flow are usually calculated as a missing figure, bimacnaa nambarka maqan ayaan raadinaynaa. oo revenuega halkan kaaga soo baxayo qaybta profit or losska, revenuega kama dhigno inaad ka wada lacagta ay ku soo wada gashay. idan sifa aan u xisaabina maxaan leenahay? qaybta financial positionka waxaa ka soo muuqan doono deymaha aan leenahay, qaybtii trade receivable-ki ayaa soo muuqanayo. idan maxaan samaynaynaa? waxaan leenahay trade receivable beginningka oo lagu daray revenuega shirkadda ay deynta ku diiwaangelisay credit saleska oo laga jaray endingka ayaa wuxuu kuu soo saarayaa lacagta aan qabanay oo ah nambarka aan raadinayno. sidaa darteed wuxuu ku leeyahay cash flowga are usually calculated as a missing figure. For example, when the beginning balance of an asset, qaybta trade receivable-ka, ama liability, tusaalaan isla qaadan doonaa calaaqalale qaybta tax liability-ga, equity-ga, tusaalaan isla qaadan doonaa qaybta equity-ga retain earning-ka. marka aan reconcile garayno annagoo eegayno qaybta closing balance-ga, isticmaalayno informationka calaaqada leh profit or losska ama additional informationka lagu siinayo, ayaan waxaan soo saaraynaa balancing figure oo ah nambarka maqan. nambarkaasna wuxuu yahay dhaqdhaqaaqa cashka, lacagta ay shirkadda ay bixisay.
waxaa common ah in cash flowga calculationkani lagaa dalbado oo adiga lagaa rabo. tusaale ahaan oo kale lacagta ay shirkadda taxiga ay bixisay oo macalin profit or losska taxiga ka soo muuqanayo ma aha miyaa lacagta shirkadda ay bixisay? dabcan ma aha, waan ku soo qaadannay. waa lacagta ay shirkadda filayso in ay bixin doonto, li'anno warbixinta maaliga goormaan diyaarinaynaa 31 December. canshuurahana goormaa la bixiyaa? waxaa la bixiyaa kowd. tusaale ahaanoo kale waddan walba waddamada way kala duwan yihiin, laakiin tusaale ahaanoo kale qatar waxaa la bixiyaa qofka canshuurta waxaa la rabaa inuu bixiyo kowda bisha May, bisha shanaad. haddaba shirkadda waxay ku diiwaangelinaysaa warbixinadeeda lacagaha ay filayso inay bixin doonto. lacagta ay filayso estimationka ayay diiwaangelisaa ee lacagtii ay bixisay ma aha. haddaba lacagtii ay bixisay sidee baan u xisaabinaynaa? waan isla arki doonaa. okay, tax paid ka qaybtay ka mid tahay, operating activity-ga ayay ka mid tahay, waana outflow lacagaad bixisay paid ayaan leenahay. sidoo kale property, plant iyo equipment-ga suuragal waxaa ah shirkadda inay soo gadato. marka ay shirkadda soo gadato sidee baan u xisaabinaynaa? mucaadalaan isla qaadanaynaa. property iyo plant iyo equipment yay ka tirsan tahay? waxay ka tirsan tahay investing activity-ga, outflow ahaanana kusoo bandhigaynaa. sidoo kale qaybta dividend paid waxay calaaqa la leedahay qaybta financing-ka ayay calaaqa la leedahay. 3 mithaal aan isla qaadanno. hadafka aan inta ka leenahay waa inaan isla fahanno qaabka loo xisaabinayo dhaqdhaqaaqa lacagta. okay, mithaalka ugu horeeya maxaana la weydiinayaa? waxaana la weydiinayaa lacagta ay shirkadda bixisay, tax paid, lacagta ay bixisay ayaana la weydiinayaa. maxaana la siiyey? shirkad waxaana la yiri shirkad C company tax liability-geeda 1 January 20x1 oo ah bilowga sanadka wuxuu ahaa 500. okay, bimacnaa openingkii waaye. 31 December bimacnaa closingkii waaye, waa 900 baa la yiri. warbixinta profit or losskana waxay ku diiwaangelisay 1000. maxaana laga rabaa? lacagta shirkadda ay bixisay tax paid. waa muhiim in aad mithaalkani ila fahanto. sidee baan u xisaabinaynaa? calculator soo qaado. waxaan leenahay calculator soo qaado. openingka oo ah 500, mucaadalada weligaa laa xifdi. openingka oo lagu daray kharashaadka taxiga aan diiwaan gelinay oo ah 1000, oo laga jaray closingka ayaa ah lacagta aan bixinay. waana meeqa? waa 600. okay, is that clear? bimacnaa shirkadda taxiga ay bixisay fiiriya lacagta markii hore 500 ayay ahayd, sooma? 500 ayay ahayd. waxaana hadda noo soo muuqatay in ay 900 tahay, halka shirkadda ay ka diiwaangelisay 1000 ay 1000 ka diiwaangelisay. haddii shirkadda 500 oo lagu daray 1500 leesh ay 900 u soo hartay? bimacnaa 600 oon bixinay ayaa jiro. aan t accountigii aan isla qaadanno. aan isla fiirino. okay, xisaabkan ka hadlayno waa maxay? ii sheeg adiga xisaabkan ka hadlayno. waa tax liability waa xisaab calaaqa leh qaybta liability-ga. idan 500 opening balance-giisa qaybta credit-ka ayuu ka soo muuqanayaa. idan 500 ayaa noo diiwaan gashanayd. okay, dhammaadkana waxaan idhi December waa 900 weeye. okay, waxaana diiwaan gelinay baan idhi 1000. maxaan diiwaan gelinay 1000? markaan diiwaan gelinayna sidee baan intriga maxaan samaynay? kharashka markaan diiwaan gelinayna waxaan niri tax expenses oo ka soo muuqday qaybta tax expenses. okay, bahal meel meeshana wax ku qoraya, ha loo dulqaato, oo aan ku soo bandhigayno 1000. okay, qaybtana maxaan yiri? tax liability 1000. idan xagee buu ka soo muuqday isagana? qaybta credit-ka ayuu ka soo muuqday. idan qaybtan ayuu ka soo muuqanaya lianno credit-kaygii waa kana. okay, now how come 500 oo lagu daray 1000 ay natiijada 900 u soo baxaysaa? bimacnaa waxaa jirto lacag aan bixinay ayaa jirto oo missing figure ah oo ah 600. are you with me? I hope inaad ila fahantay ayaan rajaynaya. is that clear? okay, now haddii aad hoos u degto, okay, waxaa kuu soo baxayso lacagtii aan xisaabinay oo ah lacagtii shirkadda aan bixinay. waxba ha isku daalinin,
kaliya mucaadalada ila fahan mucaadaladii aan hadda ku sheegay openingka ku dar lacagta taxiga kadibna ka jar qaybta balansiga sifa ay kugu soo baxdo okay aan u gudubno mithaalka labaad requirementiga waa maxay waxaana laga rabaa inaan soo saarno lacagta shirkadda ka baxday cash paid by C company markii ay soo gadanaysay property plant iyo equipment ayaana laga rabaa okay maxaana la siiyey waxaana la siiyey bilowgii property plant equipmentiga carrying amountigii waana la siiyey waa 10,000 baana la yiri sidoo kale shirkadda carrying amountiga sanadka markuu dhamaadayna waana la siiyey idan openingkiina waa lagu siiyey endingkiina waa lagu siiyey transactionada dhacay ee ku saamoobay qaybta property iyo plant iyo equipmentigana waana la siiyey iyo depreciationkiina waa lagu siiyey revaluation surplusna waana la siiyey sidoo kale shirkadda waxa ay iibisay carrying amounti qiimihiisu yahay u diiwaan gashana 1500 ayay waxay ku iibisay 2,000 haddaba sidee baan ku soo saari karnaa cash paid ka sidee baan ku soo saari karnaa sifaad u soo saarto tabcan waxaad u baahan tahay in advanced tahay t accountiga iyo qaabka ay u dhaqaaqayso okay mucaadalada waxaan filayaa waan soo qaadanay aan haddana calculatorka soo qaado sifa ay practice kuugu noqoto idan openingka waxaan leeyahay openingka closingka ii dambeeyo openingka ayaan ku bilaabayaa depreciationka marka aan diiwaan gelinayna ma xasuusataa marka saameyntiisa waa maxay marka depreciationka la diiwaan gelinayo saameyntiisa bimacnaa hoos ayay u dhigtaa idan minus waxaan leenahay 2,000 oo depreciationka ah okay kadib waxaana loo sheegay in ay revaluation surplus uu jiro revaluation surplus markuu jiray ma xasuusataa qaybta debitka ayaan dhigi jirnay property plant iyo equipmentiga idan plus ayaan leeyahay 6,000 okay oo laga jaray maxaan ka jaraa maxaa ii dhiman hadda waxaa ii dhiman qaybtani disposalka idan disposalka 2 lambar ayaan haynaa qaybtan lacagtii aan qabanay oo ah 2,000 iyo qiimo ahaan assetkaasi qaybta aan iibinay wixii noogu diiwaan gashanaa carrying amountiga keebaan ka jarayaa dabcan lacagtan aan qabanay si separate ah ayaan ugu soo bandhigaynaa proceeds from property plant iyo equipment idan kama jaraya qaybtani ee waxaan ka jarayaa 1,500 oo ah wixii carrying amountiga ii diiwaan gashanaa kadibna waxaan ka sii jarayaa 30,000 oo ah closingka ayaan ka jarayaa waxa ii soo baxayso assetka ay shirkadda soo iibsatay qiimihiisu wuxuu ahaa 17,500 ayuu ahaa mucaadalooyinka haddii aad taqaano iyo dhaqdhaqaaqa xisaabka way fududahay in aad ka jawaabto su'aalahan oo kale intaa inaa ila fahantaan rajaynaya arday baa wuxuu leeyahay macalin maadaama 2,000 aan ku gadnay 2,000 baan ku gadnay 1,500na waan ku iibinay ay yani asset qiimihiisa ahaa 1,500 2,000 ku gadnay faa'iidadii profitka 500 xagee bay ka soo muuqanaysaa waxay ka soo muuqanaysaa qaybta marka aan ku xisaabinayna gadaal baan ka wada arki doonaaye qaybta operatingka ayay ka soo muuqanaysaa oo waa inaan qaybta reconciliationka markaan adjust garaynayno ayaan ka soo muujinaynaa waana isla fiirin doonaa باذن الله تعالى is that clear I hope inaad ila fahantay ayaan rajaynayaa tamam okay jawaabta aan ka tagno anu imaana su'aasha saddexaad maxaan la weydiinayaa waxaa lagu weydiiyey dividentiga shirkadda ay bixisay cash flow dhaqdhaqaaqa lacagtaan rabnaa dividentiga ay shirkadda bixisay okay dividentiga ay shirkadda bixisay dividentiga marka la diiwaan gelinayo marka la bixinayo xagee baa laga bixiyaa xisaabkee baa ku saamoobo retain earningka ayaa ku saamoobo xagee baan wax ka bixinaa baan niri cashiradan ku soo qaadanay retain earningkan ka bixinaa idan waxaan u baahanahay inaan helo openingkii iyo closingkii iyo wixii lagu diiwaan geliyay qaybta profit or losska sifa aan u soo saaro dividentiga baxay okay maxaana la siiyey macluumaadka January 1 shirkadda waxa ay haysatay retaining earn oo 5,000 ah waxay faa'iiday sanadkani 4,500 okay closingkana wuxuu ahaa 7,000 idan haddii retain earningkeena uu 5,000 ahaa sanadkana 4,500 aan faa'iiday maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in 5,000 oo lagu daray 4,500 in faa'iidadeena ay mafruud ahaato 9,500
laakiin 31 December meeqaa shirkadda u diiwaan gashan 7,000. idan haddii aan ka jarno 7,000 waxaa kuu soo baxayo lacagta dividentiga ee shirkadda u qaybisay dadka shirkadda maalgashaday oo ah 2,500. Is that clear? I hope inaan isla fahmayno ayaan rajaynaya. lacagta aan ka hadlayno waa qaybtani. Is that clear? hagaag inta ma ila fahantay? I hope inaad ila fahantaan rajaynaya. anu imaanna marka qaybta classification qaybaha ay u qaybsanto cash flow-ga. sida uu qabo xeerka IAS number 7 statement of cash flow-ga waxa ay ka mid tahay warbixinada maaliga ee la rabo shirkadda inay soo bandhigto. statement of cash flow-ga waxaan u qaybinaynaa 3 qaybood: operating activity, investing activities iyo financing activities. horaan soo qaadan wax kugu cusub ma aha. marka la diyaarinayo qaybta operatingka laba wadaa lagu diyaarin karaa. qaybtana waa isku mid, bimacnaa qaybta warbixinta labaan u kala qaadaynaa. qaybta operatingka warbixintoo dhammaystiran, warbixinta labaan u kala qaadaynaa. qaybta operatingka iyo labada qaybee kale isku sibaa loo diyaariyaa. bimacnaa marka aad wadooyinka warbixinta lagu diyaarinayo direct methodka iyo indirect methodka waa qaybta operatingka keliya qaabka loo soo bandhigayo. investingka iyo financingka isku mid weeye. okay, now marka maxaan leenahay operating activity can be presented in 2 different ways. warbixintoo dhan ma ahaya, qaybta operatingka keliya laga hadlayaa. laba wadaa lagu soo bandhigi karaa, direct method iyo indirect method. operatingka bas baa laga hadlayaa, aan ku celiyo. operatingka laba wadaa lagu soo bandhigaa. okay, direct method markaan ka hadlayna bimacnaa waxaan rabnaa inaan ogaano lacagaha shirkadda laga soo qabtay, cashka ay shirkadda qabatay iyo lacagaha ay bixisay oo ay siisay dadka supplierka iyo employeeska. mithaalan isla qaadan doonaaye. indirect methodkana maya. indirect methodka waxaan samaynaynaa reconcile ayaan ku samaynaynaa, dib u eegis ayaan ku samaynaynaa profit before taxigii ka soo muuqanaya qaybta statement of profit or loss sifa aan ugu wareejino from accrual to cash basis aan ugu wareejino. kadibna waxaan ka jaraynaa labada wadaba, both method waxaan ka jaraynaa interestiga ay shirkadda bixisay, taxiga ay shirkadda bixisay sifa aan u helno net cash from operating activity aan u helno. dabcan haddii aad cashirka soo qaadatay waxani waxay kuu noqonayaan muraajaco basiid ah, aadna uma sii kor istaagayno. qoraaga wuxuu leeyahay sidoo kale investing activity-ga waxa ay calaaqa la leedahay non current asset-ka iyo qaybta investmentiga. bimacnaa waxaa ka soo muuqanayo qaybta investing activity-ga keliya non current asset-ka keliya ah ayaa ka soo muuqanayo oo calaaqada leh haddii shirkadda ay soo gadatay property, plant, equipment ama haddii ay disposal ku samaysay. si separate ayaan usoo bandhigaynaa wixii aan soo gadanay iyo wixii aan iska iibinay iyo wixii nooga yimid qaybaha investmentiga ritaankii nooga imaaday. qaybta financingana wuxuu ku leeyahay qoraagu financing activity-ga waa qaybaha lacagaha dhaqdhaqaaqa lacagaha ka imaanayo ee shirkadda lagu maalgelinayo. maalgelintaasi ha ahaato deyn ama ha ahaato equity. maalgelintaasi ha ahaato deyn aan bangiga ka soo qaadanay ama equity ha ahaato. oo lacagta haddii aan deynta aan soo qaadanay waxaan ku soo bandhigaynaa lacag cash flow ahaan lacag shirkadda u soo xarootay. lacagta aan deynta aan iska bixinayna waxaan ku soo bandhigaynaa lacag aan shirkadda ka baxday oo dhaqdhaqaaq shirkadda lacag ay bixisay ayaan ku soo bandhigaynaa. sidoo kale shareholderka lacagaha ay shirkadda ay soo geliyaan marka ay saamiyada gadanayaan ama lacagaha ay la baxayaan marka dividentiga loo qaybinayo. Is that clear? Okay. operating activity-ga waxaan niri laba wadaa lagu diyaariyaa sida uu qabo xeerka IAS number 7. wadada ugu horeysa oo ah direct methodka. markaan direct methodka aan ka hadlayna bimacnaa waxaan ku bilaabaynaa dhaqdhaqaaqa lacagta. shirkaddan lacagta ay ka qabatay dadka customerka ayaan ku bilaabaynaa. waxaanan ka jaraynaa lacagaha aan bixinay ee aan siinay dadka noo shaqaynayo iyo supplierka ayaan ka jaraynaa. iyo other operating expenseska kharashaadka kale ayaan ka jaraynaa sifo
and finally waxaad kasii jaraysaa lacagaha interestiga iyo taxiga bimacnaa formatka ayaa la rabaa in lagu tuso bimacnaa formatka waxa weeyaan ku bilow marka hore cash receive from customer waxaad ka jartaa cash paid to supplier cash paid to staff wixii kharashaado dhan waxa weeyaan soo listi garee ugu dambeyn waxaad ka jartaa qaybaha interestiga iyo taxiga sifa aad u hesho natiijada aad raadinayso oo ah net cash flowga ka imaaday qaybta operatingka qaybtaasi maxaa weeye waa direct methodka weeye qaybtaasi laakiin indirect methodka maxaad samaynaysaa indirect methodka ma samaynaysid kama bilaabaysid lacagta aad qabatee waxa aad ku bilaabaysaa profitka kaaga imaaday before taxiga ee statement of profit or loss kadibna waxaan ku samaynaynaa inaan reconcile garayno marka aan reconcileka aan leenahay bimacnaa waxa aan adjust garaynaysaa kharashaadka non-cashka ah sida depreciationka oo kale losska calaaqada leh disposalka non-current assetka iyo haddii ay jirto income kaaga yimid investmentiga maadaama investmentiga meel gooni ay leedahay waan ka jaraynaa sidoo kale waxaad ka jaraysaa disposalka ayaan ka jaraynaa is that clear طبعا waxaan isla qaadan doonaa mithaal warkan waxaan u bedeli doonaa practical ayaan u bedeli doonaa intaa kaliya kuma daynayside waxaad u imaanaysaa qaybta working capitalka ayaad u imaanaysaa working capital marka la leeyahay waxaa laga hadlayaa trade inventory trade receivable iyo trade payable ayaa laga hadlayaa isbadbedelkooda ma ka soo muuqanayso isbadbedelkooda kama soo muuqanayo warbixinta statement of profit or loss ma saameynayso waxaana ay calaaqa la leedahay dhaqdhaqaaq lacageed sidaa darteed waa in aad isbedelkooda aad ka soo muujiso qaybta operatingka aad ka soo muujiso mithaal aan isla qaadanaynaa let's see mithaalka aan u gudubno okay mithaalka aan u gudubno mithaalkani waxaana la siiyey qaybtan waxaana la siiyey statement of financial statementigan ayaana la siiyey waxaa laga bilaabay operating profit investment income financing cost profit before tax profit for the year other comprehensive income revaluation gain total comprehensive income qaybtan oo dhan waa kulli waxay calaaqa la leedahay profit and loss and other comprehensive income kadib waxaana la siiyey statement of financial position qaybta current assetka iyo current liabilityga kali ayaana la siiyey macluumaad dheeraad ah ayaana loogu daray waxaa la yiri shirkadda depreciationka wuxuu ahaa 50,000 amortizationkana 40,000 ayuu ahaa lacagaha shirkadda ay qabatay customerka ay ka qabatay ayaa lagu siiyey ogow hadow waxa laga yaabaa in adi xisaabay lagu dhaho lacagta shirkadda ay qabatay adiga laga yaabaa xisaabay lagu dhaho hadda laakiin waxa weeyaan lacagtii baana la siiyey 800,000 aan qabanay supplierkii iyo employeeskiina waxay shirkadda siisay totalkii baa lagu siiyey dhaqdhaqaaqii lacagta laakiin hadhow haddii xisaabay lagu dhaho mucaadalooyinkii aan ku barnay kaliya isticmaal sidoo kale waxaana la siiyey interest paid ayaa lagu siiyey haddii lagu siin lahaa interest charge bimacnaa waxaa lagaa dalban lahaa inaad xisaabiso sifa interest paid aad u soo saarto tax paid ayadana waa lagu siiyey haddii lagu siin lahaa tax charge waxay ahaan lahayd inaad soo saarto tax paid waana ku soo qaadanay chapterka qaybtaasi waa inay kuu fadhido hadda maxaana laga rabaa mithaalkani laba shay baana laga rabaa waxaana la yiri waxaad diyaarisaan operating activities sectionka idinkoo isticmaalayo direct method iyo indirect method labada wada idinkoo isticmaalayo diyaariya ayaana la yiri excelka aan furano haddaba requirementiga maxaan nidhi requirementiga waa in aan diyaarino qaybta operatingkana la rabaa inaan diyaarino operating sectionka annagoo marna isticmaalayno direct methodka marna indirect methodka aan isticmaalayno aan ku bilowno direct methodka ayaan ku bilaabaynaa direct methodka aan ku bilowno okay direct methodka maxaan dhihi jirnay weliga allaha direct methodka waxaad ku bilowdaa lacagta aad qabatay idan waxaan leenahay cash received okay waxaan leenahay cash received from customer okay lacagta aan qabanay ayaan ku bilaabaynaa cash received from customer meeqaan qabanay 800,000 ayay shirkadda qabatay okay kadibna waxaan ku xijisiinaynaa lacagaha shirkadda ka baxay waxaa la yiri cash paid to supplier and employees idan waxaan leenahay cash paid to supplier
supplier and employees. Okay, in employees waa meeqaa? waa minus ayaan kusoo bandhigaynaa 626,000. okay, formatka hadaad xifdsanta waa very easy. okay, ma jiraa wax kharashaad kale oo nala siiyey? kharashaad kale oo nala siiyey macluumaadkani kuma jiro. haddaan dib u laabano qaybtani waxay calaaqa la leedahay financial statementiga, qaybta financial positionka ayaan ka wadaaye. qaybtana waxay calaaqa la leedahay statement of profit or losska. anina waxaan u baahanahay maxaa kharash baxay, maxaa shirkadda soo galay. sidaa darteed warbixinadan ma i anfacayaan. maxaa i anfacayo? notiska la isiinayo. idan waxaan leeyahay macluumo kale ma hayo. mar haddaana macluumo kale haynin maxaan leeyahay? waxaan leeyahay cash generated from operations. okay, cash generated from operation waa maxay? okay, kadib maxaan samaynayaa? waxaan ka jarayaa interest paid-ka. interest waa formatkii, wax cusub meesha lama keenin. interest paid formatka ayaa ku siinaya mar walbaba interestiga inaad ugu dambeysiiso. interestiga waa maxay? waa 12,000 weeye. kadibna lacagta tax paid ayadana waa meeqa? waa 13,000. okay, macluumo kale miyaan hayaa? maya ma hayo. idan waxaan leeyahay net cash flow. okay, net cash flows from operating activities. okay, operating activities. okay, activities, is that clear? I hope inaan isla hayno ayaan rajaynayaa. okay, kadibna waan isku soo daraynaa. qaybtani markaad isku daraysa haddii ka bilow meeshii ugu dambeysay, maxaa noo soo baxday? in lacagta ka imaatay net cash flowga ka imaatay operatingka inay tahay 194. haddaan u imaanno inaan qaybta labaad ka shaqayno oo ah inaan indirect method aan ku diyaarino. qaybtii direct methodkii waan diyaarinay. hadda maxaan diyaarinaynaa? qaybta indirect methodka ayaan diyaarinaynaa. indirect method ayaan rabnaa inaan ku diyaarino. indirect methodka formatka muxuu ku bilaaban jiray? waa inaad ku bilowdaa profit before tax inaad ku bilowdaa, kadibna aad adjust garaysaa. okay, aan dib ugu laabano. qaybtan waxay calaaqa la leedahay financial position. waxaan rabaa inaan u laabto qaybta profit statement of financial qaybta profit or loss kaan ujeedaaye. okay, waa inta waxaa weeyaan operating profit haye, qaybta kadibna investing bana la siiyey, kadibna financing, kadibna profit before tax. bimacnaa numberkan ayaan soo qaadayaa. okay, 82,000 weeye. okay, kadib maxaan samaynayaa? any item oo ka sarreeya qaybtan ayaan dib u eegayaa. wixii operating aan ahayn meesha ayaan ka saarayaa. okay, financing costiga mar labaad ayaan qaybta si separate ayaan usoo bandhigaynaa. sidaa darteed waa inaan ku soo celinaa lacagta aan ka jarnay. investing income-ka operating ma aha, sidaa darteed waa inaan dib uga jarnaa wixii aan ku darnay warbixinta profitka. idan maxaan leenahay? investing income-kaas ii soo koobi garee. investing income-ka waa inaan soo celiyaa. sifa aan u soo celiyo maxay taafiirkeeda muxuu ah? saameynteeda plus ayuu ahaa. cagsil ishaara samee minus 12,000 dheh, lianno inaan adjust garayaan rabaa. maadaama oonan operating calaaqa la lahayn ayaan meesha ka tirtirayaa. financing costigana waxaa weeyaan lacagtan waa sida accrual ahaanta waxay aan ku diiwaan gelinay. sidoo kale qaybta financeka interestiga si gooni ah ayay usoo muuqataa. idan sifa aynan duplication u dhicin waxaa weeyaan waan adjust garaynayaa. sifa aan u adjust garay maxaan leeyahay? ii soo koobi garay number 1 waan soo koobi garaynay. saameyntiisa maxay ahayd? waan ka jarnay. sifa aan u adjust garayno waa dib baan u soo celinaynaa. ishaarada lee bedel. okay, kadib numberkan already waan qaadnay. canshuurtana si gooni baan usoo bandhigaynaa. okay, revaluationkana kama soo muuqanaysa qaybta operationka, calaaqa ma laha. yay calaaqa la leedahay? investmentiga ayay calaaqa la leedahay. haddaba waxaan ka dhammaaday qaybtii profit or losska. laakiin mar walba formatkii aan soo qaadanay waxaan dhihi jirnay aaway transactionada non cashkii aaway. okay, haddii aad ku laabato additional informationkana la siiyey waxaa la yiri waxaa jiro depreciation. shirkadda depreciation expenses ayaa jiray. depreciationka maxaan ku samaynaynaa? waa in aan soo celinaa. depreciationka saameyntiisa waa maxay? depreciation expensesku saameyntiisa waa saameyntiisa waa minus. sidaa darteed waa inaan dib u soo celinaa. okay, ha hilmaamin weliga allaha. sidoo kale amortization ayaa jiro. depreciation iyo amortization maxay ku kala duwan yihiin?
dabcan waxaan ku soo qaadanay cashiradii wax cusub ma aha haddii aad cashirada muraajacaynayso intaasi waad ila haysaayo ku celin maayo okay waa meeqaa amortizationkana waa 40,000 qaybtana waa 50,000 aan dib u saxo okay I hope inaan inta isla fahmayno ayaan rajaynayaa additional informationka waan ka dhamaaday profit or losskiina waan ka dhamaaday hadda waxaan u imaanayaa qaybtii ugu dambeysay oo working capitalka ahayd ayaan u imaanayaa maxaana la siiyey current asset iyo current liability waxaan ku bilaabayaa qaybta ugu horeyso inventoryga maxaa ku dhacay sanadkii lasoo dhaafay openingka 25,000 ayuu ahaa inventorygeena haddana waa 30,000 idan maxay ka dhigan tahay inventory cusub baan soo gadanay maadaama inventory cusub aad soo gadatay waxaan ka soo qaadaynaa inaad lacag bixisay okay maadaama lacag aad bixisay farqiga minus ahaan ayaan kusoo bandhigaynaa increase in inventory ide meeqa waxaan leenahay kala jar waxaan leeyahay minus waxaad ii dhahdaa 30,000 plus 25,000 okay now micnaha waxaan rabay minus inay ii soo baxdo okay waad dhihi kartaa minus 5,000 laakiin weliga allaha calculation inaad samayso ha isku dayin in aad maskaxdaada ku kala jarto maskaxdaada weliga allaha yani calculatorka mar walbaba isticmaal lianno waxaa laga yaabaa in aad silly mistakes aad samayso oo ay jawaabta kaa khalado okay now qaybta trade receivable-ka maxaa dhacay waa 26,000 bay ahayd deynta naga maqneyd haddana waa 20,000 haddaba maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in deyntii la bixiyey haddaba waxaan leeyahay decrease lianna hoos ayuu u dhacay deyntii hoos ayay u dhacday decrease lacagtii aan lagu lahaa lacagtii aan dadka ku lahayn hoos ayay u dhacday decrease in trade receivables okay meeqa okay sifa plus ay igu soo baxdo tan weyn ayaan ku bilaabayaa kadibna tan yar baan ka jarayaa okay lianno hadafka waxaan rabaa in ay plus ii soo baxdo okay now maxaa ii dhiman qaybta trade payableka meeqay ahayd trade payableka haddaad xasuusato waxaan ku iri mar walbaba macal ishaara ka dhig 11,000 bay ahayd 14,000 bay noqotay bimacnaa way ziyaadada plus hadday naaqustana minus halka inventoryga qaybta assetka ay caksal ishaara ay tahay haddii aad rabto inaad xifdisanaysaa u xifdi increase inta may la fahmaysaa increase in trade payables ide okay marka waxaan leenahay trade payables ide okay waxaan leenahay 14,000 oo laga jaray 11,000 yaano plus inay isoo baxdaan rabaa is that clear I hope inaan intaa isla fahmayno ayaan rajaynaya marka maxaan samaynayaa wax kale ma ii dhiman warbixintii statement of financial position-kana waan ishaan mariyey waanan ka shaqeeyey profit or loss-kana sidoo kale additional information-ka qaybtana waan ka dhammaaday keliya waxaa ii dhiman qaybtan maxay calaaqa la leedahay qaybtan waxay calaaqa la leedahay direct method-ka oo lacagta la qabtay ah anna indirect baan ku shaqaynayaa oo waxaa weeyaan profitkan ka bilaabay kadibna waan adjusti garaynayaa idan qaybtan calaaqa ilama laha idan waxaa ii dhiman qaybta interestiga inta aadan soo bandhigin waxaan leenahay cash generated from operation formatka waa inaad xifdisan tahay cash generated from operation okay kadibna isku kay soo dar keliya sam ii dheh wax cusub ma samaynayno okay is that clear isku mid weeye isku mid weeye wadadaad isticmaashaba isku mid ayay kuu soo saaraysaa kadibna waxaan ka jaraynaa interest paid okay kadibna tax paid okay interestiga finance costiga fiiri interest paid ka meeqa waaye 12,000 weeye macluumada dheeraadkana la siiyey waxaana suuragal inaan macluumaad lagu siin adiga lagu dhaho xisaabi sifa aad u xisaabiso bimacnaa waa in lagu siiya qaybta current liability-ga calaaqada la leh tax liability-ga interestiga liability-giisa sifa aad u xisaabiso waxaad u baahantay openingkii iyo closingkii iyo kharashaadkii ay shirkadda diiwaan gelisay oo ah qaybtani cashirka qaybtii haddaan kusoo qaadanay laakiin hadda waa lagu fududeeyey oo adiga maadan xisaabininoo waxaa lagu yiri waa 12,000 lacagta la bixiyey okay 10,000 waa maxay waa kharashaadka sida aqwaal ahaanta loo diiwaan geliyey teebaan isticmaalayaa lacagta cashka dhaqdhaqaaqeeda ayaan la soconayaa maadaama statement of cash flow la dhaho oo dhaqdhaqaaqa lacagta ay la socoto
idan 12 kun weeye taxigana sidoo kale 13 kun ayaan bixinay halka profit or losska ay ku diiwaan gashan tahay 32 kun 32 kun maynan bixinin shirkadda estimationkii ay samaysay weeye maxaan rabnaa inaan soo muujino lacagta aan bixinay idan 32 kun ha idhihin ha iskhaldin 13 kun idhe minus 13 kun idhe okay kadib maxaa ii dhiman macluumaadka la isiiyo dhan waan wada ruugay oo waan wada dhameeyey kadibna waxaan leenahay net cash flows okay net cash flows from operating activities okay kadibna iskugu kayso darsaam ii dheh kasoo bilow meeshii ugu dambeysay natiijadii ugu dambeysay ee aan soo saarnay oo ah qaybtan cash generated from operation idan maxaa ku soo baxday isla natiijadii aad ku soo saartay wadada direct methodka aad ku soo saartay idan formatka haddaad xifdisan tahay macluumaadka lagu siiyeyna aad fahamtay very easy weeye in aad xisaabiso oo aad soo saarto natiijada noo soo baxday weeye is that clear I hope inaan isla fahanay ayaan rajaynayaa qaybtanna waa xisaabaadkii يعني qaabkay ayaga u xisaabiyeen weeye inta misla fahanay طبعا articlekan waxaa qoray mid kamid ah teamka imtixaanka qaado ee ACCA da I hope inaad ila fahantay ayaan rajaynayaa